golaha madaxtooyada maamul goboleedka Khaatumo State ayaa shir uga socday magaalada Boocame ee gobolka Sool waxay ka soo saareen go'aamo ay ugu magac dareen dardargelinta iyo sidoo kale dib u habaynta maamulka Khaatumo. Cabdiraxmaan Cali Nuur Cabdiraxmaan Bedel ayaa warbixintan halkaas inooga soo diray. shir wada tashi ah oo ay saaka isugu yimaadeen degmada Boocame ee gobolka Sool madaxda sare ee madaxtooyada Khaatumo oo ay kamid ahaayeen madaxweynayaasha kala ah Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash iyo madaxweyne Cabdinuur Cilmi Qaaje Binde iyo madax kale oo ka tirsan madaxtooyada Khaatumo ayaa shir dheer oo wada tashi ah kadib waxa ay ku soo saareen war murtiyada ay u bixiyeen dib u hanashada iyo badbaadinta maamulka Khaatumo. madaxweyne Cabdinuur Cilmi Qaaje Binde oo ku soo dhaweynayay magaalada Boocame madaxda kale ayaa ugu horeyn ba halkaasi ka hadlay waxa uu soo jeediyay ajandaha kulankan ay maanta isugu yimaadeen oo ahaa midan hore loo shaacin. madaxweynaha oo halkan ku casuumay madaxweyne Axmed Cilmi Cismaan wada tashi dheer oo dhinacyo badan taabanayana aanu galay waxaanu soo saarnay war murtiyeedka kan arrintaana waxa keenay baahi loo qabo dib u hanashada Khaatumo iyo maamulkeeda iyo dalka Khaatumo. Axmed Cilmi Cismaan Axmed Garaash ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo uu sheegay in ay ka dambeysay maanta shirka kan ay isugu yimaadeen madaxtooyadu isla markaana ay ka tashanayaan aayaha iyo dib u hanashada maamulka Khaatumo. ka wada tashano hawlaha loo yaala waxaanu soo saaray war murtiyeedka loogu magac daray dib u hanashada iyo badbaadinta Khaatumo maamulka Khaatumo iyo Khaatumo guud ahaanba sida la idin sheegay warkaas waa la idin akhri doonaa waxaanu u sheegaynaa dadka reer Khaatumo ama na dhageysanaya ama na arki doona na daawanaya warka isaga ah inuu yahay mid rasmi ah kii aanu isleenahay waxbaad ku qaban kartaan inuu yahay kii aanu isleenahay dib baad ugu soo celin kartaan maamulkii Khaatumo oo baryahan maxay tahay aanu aragnay inaanu sidii loogu talagalay aanu ahayn. inta haddaan ka gudbo waxa jira in niman cuqaala oo dalkoodii iyo guryahoodii jooga shalayto lagu qabtay guryahoodii وقاشاس وقريهودي جوجا أو واحد باتا عن ودين دبادنا للشردلي أو للشردلي أو الحري ولو أديك سدي كوا محشو ضيارة ومعارس ضيارة لو أديك سدي أو الشردلي أرنكا وحلا شبهد أسنم أول بويابي مامور بين قانون يعني شبهد نمدو دي هدي أي هذا أي كبدين وعيل ولا لشبهدينية ولا لشبهدينية وحول بكير وهديان كودت كوحمين كذا الله بيقوم حما الشعب لها قردامية أو الشعب لها قردامية يولي. intaasi kadibna waxa war murtiyeedkaasi saxaafada u akhriyay agaasimaha madaxtooyada Ibrahim Cabdi Xaaji Diiriye jaaliyadaha Khaatumo oo idil ruguhood ujeedo barnaamijka dib u hanashada hawlaha maamulka Khaatumo golaha madaxtooyada ee dawlad goboleedka Khaatumo State of Somalia iyagoo ka duulaya barnaamijka cusub ee dib u hanashada hawlaha maamulka Khaatumo oo ujeedadiisu yahay toosinta iyo dardargelinta hawlaha maamulka Khaatumo ayaa waxay si wada jir ah u soo saareen wareegtada. Number 2 golaha madaxtooyada ee maamulka Khaatumo waa awoodda ugu sareysa ee dawlad goboleedka Khaatumo State of Somalia. sidaas darteed guud ahaan awaamiirta howlaha maamulka Khaatumo oo dhan waxay si toos ah uga soo baxayaan golaha madaxtooyada Khaatumo State of Somalia oo kaliya. Number 2 xoreynta iyo difaaca golaha madaxtooyada ee Khaatumo isagoo ka duulaya barnaamijka cusub ee dib u hanashada howlaha Khaatumo wuxuu cadeynayaa in xoreynta iyo difaaca deegaamada maamulka Khaatumo ay tahay
hadafka koowaad ee loo dhisay maamulka khaatumo waxaana la farayaa dhammaan saraakiisha ciidamada ee maamulka khaatumo inay muddo kooban ku soo gudbiyaan qorshe qeexan isla mar ahaantaana dhammaystiran oo lagu howlgalo. lambar 3 golaha madaxtooyada ee dowlad goboleedka Khaatumo State of Soomaaliya waxay si rasmi ah dib ugu dhigeen shirweynihii dowlad goboleedka Khaatumo sababahan soo socda awgeed iyadoo aan la diyaarin waxyaabihii gundhiga u noqon lahaa qabsoomidda shirweynaha maamulka. iyadoo la qaban doono ka hor shirweynaha shirar turxaan bixin ah oo ka horeyn doona shirweynaha loo balansan yahay. waxaa madaxtooyada Khaatumo xilligan ku guda jirta diyaarinta shir hoosaadka roadmapka Khaatumada cusub taasi oo madaxtooyada maamulka Khaatumo dhawaan shaacin doonaan halka uu ka dhacayo iyo xilliga uu dhacayo. Abdiraxmaan Cali Nuur, Samsaad, Garowe.